بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ku soo dhawaada wararkii caalamka iyo Soomaalida gaar ahaan muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Jamhuuriyadda Ukraine iyo dagaalada ka socda imika halka ay marayaan iyo wararkoodii ugu dambeeyay weerarada joogtada ah iyo weerarada baahsan ee Ruushku uu ku hayo kaabayaasha korontada ee Jamhuuriyadda Ukraine ayaa malaayiin dad ah gelisay baa la yiri mugdi iyaga oo kuwa kalena ay kulaylku ka cayriyay korontada iyo biyo la'aanta xilli jilaalku uu ka sii hoos maray baa yiri heerkulkuna uu marayo eber muuqaalka qaybtiisa dambena waxaan ku eegi doonaa daawadayaal sharciga ay ugu yeeraan gaalada ahdiga Geneva kaasoo xuquuqda bini'aadanka ilaaliya sida gaaladii sheegeen iyo waxyaalaha uu ka qabo dagaalka Ukraine imika ka socda iyo dadka rayadka sida loogu xadgudbay intaan ku soo gudbin muuqaalkaas hadii ay tahay markii ugu horeysay oo soo baqato channelkan Shati TV oo aan aalab uga hadlo taariikhii hore ee Soomaalida gumaysigu uu ku reebay iyo wararka caalamka iyo Soomaalida fadlan channelka subscribe oo kamid noqdo dadka halkaas ku xiran imikana ku soo dhawaada qodobkaas idin sheegay oo intii hore kasi faahfaahsan hogaamiyaal badan oo Ukraine iyo reer galbeed ah ayaa si degdeg ah u cambaareynaya weerarada iyaga oo ku tilmaamay dambiye dagaal inuu Ruushku ka geystay Jamhuuriyadda Ukraine iyo waxyeelo uu u geystay dadka rayadka laakiin weerarada shakiga iyo tamarta mugdiga dheeraadka ah ee qaybta ka ah dagaalka markaas loo isticmaali karo baa la yiri Ruushku inuu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah iyada oo ay jiraan xadidaad gaar ah iyo qaybo kamid ah kaabayaasha korontada ee dalka oo loo qaadan karo baa la yiri bartilmaameeyo sharciya hadii loo isticmaalo baa la yiri in lagu xoojiyo taasa la yiri jiilka militariga ee Jamhuuriyadda Ukraine tani waa run baa la yiri xitaa hadii la bartilmaameedsado ama ay yihiin bartilmaameedyadu dadka rayadka sidoo kale ujeedada ciidanka ilaa iyo inta ay burburinayaan halka ay iyagu ay u dalnayn ama kaabayaasha dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Ukraine halkan waxaan kale ku soo qaadan doonaa iyagana laba qodob oo kale oo iyagana lagu sameeyay dagaalo ka socday Serbia iyo dagaalo kale oo iyaguna ka dhacay dalkaasi Suuriya iyo sanadyadii ay dhaceen waa dalka Iraq andho iyo Serbia oo sidoo kale iyagana la sameeyay ayaynu sidoo kale labadaas qodob iyagana aynu ku soo qaadan doonaa qodobka u horeeya hadii aynu eegno kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Iraq waxa weeraray ciidamada Mareykanka sanadii 1991 istaraatiijiyadaas oo si weyn loo dhaleeceeyay ciidamada NATO ayaa sidoo kale iyaguna bartilmaameedsaday shabakadaha korontada dhanka kale Serbia iyadana sanadii 1999 labada xaaladood ee dalka Ukraine iyo dalalka kale imika aynu soo sheegnay dadka rayadka ayaa la beegsaday waxaana xilligaasi si gaar ah loo beegsanayay xarumaha korontada laga dhaliyo dhab ahaantii waxa jiri kara baa la yiri waqtiyo marka la dhexdhexaadinayo xarunta militariga iyada oo loo eegayo baa la yiri sababaha korontada iyo doorka ay ka qaadan karto sida tooska loo isticmaalo imikana aynu eegno saddex qodob oo ay gaaladu ay ku sheegaan ahdiga Geneva oo mamnuuc ka dhigaya dagaalka Ruushka iyo goobaha kale caalamka ee dagaalku ka socdaan qodobka koowaad hadii aynu eegno waxay ku sheegeen ahdiga Geneva habka mamnuuca dheeraadka ah baa la yiri iyo heshiisyadii Geneva ee dheeraadka ku ahaa ee la qoray 12 Agoosto sanadii 1949 oo la xiriiray baa la yiri ilaalinta dhibaatada olaadaha hubaysan ee caalamiga ah ee meelaha ay dagaaladu ka socdaan iyo protokolka in la ilaaliyo ayaa la sheegay 28 sanadii 1977 qodobka labaad isagana wuxuu sheegayaa weeraradu waa in ay ka kooban yihiin baa la yiri ujeedooyin ciidan oo kaliya ilaa hadda marka la eego la yiri shayga ujeedada ciidanku waxa ay ku kooban yihiin oo kaliya shaygaas
kuwaasi oo ujeedadoodu ay tahay goobaha ujeedooyinka military laga leeyahay ama loo adeegsan karo goobo wax ku ool ah oo dalkaasi militariga dhibaato u geysan kara iyo ficilada militariga iyo wadarta ama qayb ahaan baa la yiri burburinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhexdhexaadka xaaladahaasi waqtigaas lagu jira inay noqdaan kuwa dadka rayidka loogu turo ayaa lagu sheegay ama ay faa'iidooyin ciidanku ay iyagu u arkaan qodobka saddexaadna isaguna wuxuu leeyahay haddii uu shaki jira baa la yiri in shay sida caadiga ah loogu talagalay ujeedooyin dadka rayidka ah sida goobaha cibaadada guryaha iyo goobaha kale ama dugsiyada wax lagu dhigto loo adeegsado taas waxa lagu sheegay inay tahay mid ka soo horjeeda xuquuqda bini'aadanka ama talaabo ciidan mid aan ahayn waa in loo qaadan kara baa sidaas in loo isticmaalo oo dadka rayidka halkaas dhibaato loogu geysan daawadayaal halkan soo gaar channelka subscribe oo gambaleelka taabo nabaday